halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee Soomaaliyeed rag iyo dumarba maanta waxaan doonayaa inaan kelmado yar kooban oo fikirkayga aan ka yiraahdo waxbarashada dalkeena Soomaaliland iyo sidii meesha wanaagsan ee hadda ay marayso aynu uga sii horumarin lahayn waxyaabahan ka hadli doono waxa kamid ah muhiimadda manhajka wanaagsan ee leeyahay dhaxalka xun ee manhajka xumi reebo manhajka ma la bedeli kara hadii uu dabooli waayo baahida ardayga bulshada iyo tadalkaba iyo culumta ama duruusta habboon ee ay tahay inaan ubadkeena barno marka ay dugsiga hoose dhexe sare iyo jaamacadda ay marayaan waxaan wada ogsoonahay dhamaanteen in waxbarashadu tahay laf dhabarta horumarka bulshada haddii ay qaloocato ama aynaan ka fiirsan qaabka iyo waxa aynu barayna ubadkeena ama dadka baraya aysan ahayn the right people ama environment iyo conditionka wax lagu baraya uusan ahayn the right place caadiyan bulshadaas wax ka dhaca mooje waxba uma kordhaan iyana waxa aasaas u ah curriculumka iyo manhajka dejisan ee ubadka hagaya manhajka wanaagsan isaga ayaa loo nisbeeyaa waxbarasho kasta oo dhaxalgal noqota taabo qaada iyo bulsho kasta oo horumar gaadha tusaale ahaan wadamada developing nationska ee infrastructure-ka ee dhulka greenka iyo systemka iyo institutionada wanaagsan ee waxbarasho samaystay waxa uu suurtageliyay manhajka wanaagsan ee ay haystaan dadkuna sida caadiga fruitiska iyo midhaha sare ee geedka ayuun bay arkaan balse stemka iyo jirida iyo rootka iyo xididka hoose geedka ma arkaan in la helo shaqaale quality-goodu sareeyo dhakhaatiir injineero teachers professors managers politicians aqoon deeply u leh adeega ay bixinayaan inay bulshada wax ku soo kordhiyaan mooje aan qaran dumis looga baqaynin waxa aasaas u ah curriculumka iyo manhajka wanaagsan ee lagu soo cabqariyay markii ay iskuulaad ka dhiganayeen loo nisbeyn maayo geographic location-ka meeshii ay ku dhasheen ama ay ku soo barbaareen waayo curriculum macnihiisu waa hage ujeedo leh oo wax ka midha dhalinaya so I personally believe dhibaatooyinkii dib u dhaca baahsan ee bulshadeena reer Somaliland haysta waxaa qayb weyn ka ah manhaj xumada iskuulaadka iyo jaamacadaha haddaba dhaxalka xun ee manhajka xumi reebo waxaa ka mid ah number 1 waalidkii oo ku doodaya inay investment badan sameeyeen ubadkoodii ay la garab istaageen wixii awoodooda ah balse ubadkii markay soo graduate gareeyeen jaamacadihii iskuulaadkii ay ka soo baxeen majority-goodu ay ku fail garoobeen inay investmentigii waalidka dib u soo celiyaan daaye waxbarashadii aysan ka muuqan oo waxba aysan ka bedelin so parents are unhappy now they are unsatisfied and they are disappointed waxaad kaloo arkaysaa wiil ama inan 25 years old ama above ah oo ku doodaya isna waxbarashadii inuusan waxba ka faa'iidin waxba aysan ka bedelin waxna u goynaynin oo hadda bilaabaya xirfad cusub oo isagu u isbaray sida inuu fanaan ama heesaan noqdo wariye noqdo videographer ama photographer noqdo saaxadda siyaasadda ku biiro ama intuu qabiilkooda iyo reerkooda ururiyo yidhaahdo caaqil da'yar halay caleemo saaro oo halay cimaamado waxaad kaloo arkaysaa wiil ama inan waxbarashadii dhameeyay from elementary all the way up to university level oo wali ciladiisa la saari laayahay yacni aysan u cadayn hadafka nolosha uu ka leeyahay meesha uu loo socdo iyo meesha uu socdo toona caadiyana waxaa la doonayay ardaygu markuu 18 years old uu soo gaadho ee secondary school uu ka baxo inay u caddahay what he wants in this life where he want to go and how he can get there waxaad kaloo arkaysaa iskuulaadka gaarka loo leeyahay refugee camps-ka maxadada gaarka loo leeyahay oo isticmaalaya textbooks bugaag daabacan iyo manaahijta dalalka iskuulka dhisay ama fangareeya ama macallimiintooda mushaharka siiya so ubadkeeni qaar waxay ku xiran yihiin manhajka Saudi Arabia Kuwait iyo Qatar kuwa kale waxay ku xiran yihiin manhajka Kenya iyo South Africa kuwa kale waxay ku xiran yihiin manaahijta iyo textbookska ay noo keenaan reer Europe kuwana inta midna kuma xirneen they created by their own waxay ku xiran yihiin manhaj iskuulka ama jaamacadda oo dhigto lagu sameeyay waayo local government iyo xafiiska waxbarashada gobolka midna ma jeegarayo oo lama socdo waxa private iyo public institutionada lagu dhigayo waxaad kaloo arkaysaa manaahijta iskuulaadka iyo jaamacadaha oo hadafkoodu noqday education growth not education development education growth waxaa la yiraahdaa waa markii iskuulaadka iyo jaamacaduhu ay ku tartamaan waa markii iskuulaadka iyo jaamacaduhu ay ku tartamaan how many students came and registered for this semester I mean how many of them are graduated yani number iyo cadad lagu xisaabtamo not quality ardaydii jaamacadaha iyo iskuulaadka ka soo baxdayna maqaaxiyaha ay isugu yimaadaan oo ay isugu faanaan I got 2 degrees I got 3 degrees from that university from this university and I have no job nowhere to go physically jaamacadihii ay bataan
education development waxa la yiraahdaa waa marka waxbarashada miraheeda la arko yani ardayga baahidiisa ay daboosho oo ardaygu isweydiiyo maalin kasta iskuulka ayaan aadaa ama jaamacadda ayaan aadaa from 7 to 12 p.m. 6 days a week 9 months a year 16 years or more in my life. Then no scholarship, no loans, no practical lessons. Then wait a minute, how much I benefit from this education? Am I happy with my knowledge, with my skills, with my talents, with my experience, with my confidence, with my language? waxbarashadu baahideedii ma dabooshay mise waa maya? That is education development. waxaad kaloo arkaysaa ubadkii iyagu aan chance u helin inay waxbarasho iskuul iyo jaamacad ay galaan oo la yaaban si weyn ula yaaban waliba ardaydii jaamacadaha iyo iskuulaadka ka soo baxday yani discipline-kooda iyo akhlaaqiyadkooda they are breaking rules, disrespecting their elders and parents and teachers, not contributing anything whatsoever in this life, having no agenda at all. oo kule we are very lucky, annaga ayaa ka nasiib badan waayo annaga waqti iyo lacagtoona nagama luminin. waxaad kaloo arkaysaa jaamacadihii oo bixinaya koorsooyin isku wada mid ah ama isku dhow ardaydii iskuulaadka ka soo baxdayna 88% ay jaamacadaha ku xaroodaan oo ay theory dabada hayaan business management, accounting and ICT and finance and HRM and nursing and things like that. macallimiin isku wada midana inta badan ay ardayda hor yimaadaan oo ay jaamacadaha dhigaan facilities iyo modern technology iyo electronic library iyo qalab badan oo fiican oo ku filan toona aysan haysanin. waayo aniga waxaan arkay arday fara badan oo leh sir I wish to study generics, anthropology, logistics, real estate, investments, public speaking skills, military academics, athletics and things like that. waxbarasho xumadaas baahsani waa ta marka ardaygu ka soo qalin jabiyo jaamacadaha iyo iskuulaadka uusan saameyn muuqato ugu yeelan xil kasta oo loo dhiibo ama loo magacaabo. And yet we are expecting different outcome and different ideas and different generations to come. And sometimes we are blaming our students. Why don't you think differently? What happened to you? What is wrong with you? In fact, nothing wrong with our students. But there is something wrong with our curriculum, with our way of teaching, and with our education system. haddaba manhajka waxbarasho haddii uu dabooli waayo baahida ardayga, baahida bulshada iyo ta dalkaba, we need to change, waa inaynu bedelaa. baahiyaha dalalkuna isku nooc maaha. waxaa jira wadamo fara badan oo reer Yurub ah, oo Asian ah, oo Afrikaan ah, oo every single decade wax ka bedel ku sameeya manhajkooda waxbarasho. tusaale ahaan wadankan yar ee Kenya ee dariskeena ah wuxuu ku jiraa wadamada Afrika ugu waxbarashada fiican leh. Kenya waa markii saddexaad ee restructuring ay ku sameynayso manhajkeeda waxbarasho. In 1967, Kenya, Uganda and Tanzania waxay lahaayeen one single education system. ardayda saddexda gobol ka soo baxda waxay u fadhiisan jireen regional exam guud bay u fadhiisan jireen. systemkooda waxbarashana waxa uu yaalay sidan 7+4+2+3 yani 7 years of primary school, 4 years of secondary school, 2 years of high school and then 3 years of university. haddaba saddexdii gobol markay kala madax banaanaadeen in 1977, 8 years later, 8 sano kadib, Kenya waxay la timid manhaj waxbarasho oo cusub oo ah exactly ka inagu hadda aynu isticmaalno ee 16 sano ku base garaysan ee ah 8+4+4 yani 8 years of elementary school and primary school, 4 years of secondary school, then 4 years of university. Kenya markii saddexaad bay haddana waxay ku samaysay dib u habayn manhajkeeda waxbarasho. hadda waxay isticmaashaa 2+6+6+3 yani 2 years of preschool, pre-primary school ama KG-yada waxaanaynu naqaano, 6 years of elementary and primary school, 6 years of junior and senior high school, then 3 years of university. haddaba maqsadka iyo ujeedada ay muhiimka tahay inaan isla fahamnaa waxa weeyaan why bay Kenya iyo wadamada kale waxbarashada horumarka ka gaadhay ay manhajkooda waxbarasho u bedelayaan. jawaabtu waxa weeyaan manhajku haddii uu dabooli waayo baahida ardayga, baahida bulshada iyo ta dalkaba, we need to change, waa inaynu bedelaa. If you are not thinking in that way, then you are wasting your time, baby. haddaba bulshada reer Somaliland manhaj nooceeya bay u baahan tahay. We need a simple, standardized curriculum that can bring value and respond to our society's needs and wants. One education system,
throughout the country, from lower to higher education, both public and private institutions. Otherwise, no points of having more than 30 universities and produce 2,000 students every single year who do not know where to go and what to do. mas-uuliyadda in la helo hal manhaj oo aad looga fiirsaday oo public iyo private ba lagu dhigo oo certified ah oo terms iyo conditionkiisa iyo teaching methodskiisa wata daboolaya baahiyaheena kala gedisan gaarsiisan ardayga from Erigabo all the way up to Sayla. mas-uuliyaddaasi waxay dusha ka saaran tahay dowladda dhexe ee Somaliland, khaasatan especially wasaaradda waxbarashada qaranka Somaliland. balse waxa ayaan daro ah in hay'adaha waxbarashada adduunka sida UNESCO, UNICEF, JBE Global Partnership for Education ay inoo sadgareeyaan qaabka iyo waxa aynu rabno inaan ubadkeena barno, halka iyagu wixii funding ah, wixii recommendation ah, wixii facilities qalabayn iskuulaadka iyo jaamacadaha ay ku ekaan lahaayeen. waxaynu u baahannahay manhaj waxbarasho oo balance gareeya waxbarashada dalkeena Somaliland oo ay ku jiraan all vocational and technical schools. ardayga choices siinaya inuu ku biiri karo nooca waxbarasho ee uu rabo, mentally and physically and spiritually. dadkeenu waa dad active ah, waa dad faham dhow, waa dad waxaan ku uri aad u faham dhow weeyaan. waxaa jira vocational studies ama farsamo gacmeed ama technical skills dadkeenu dhexdooda ay isbaraan iyagoo aan iskuulaad iyo jaamacado midna aysan u teginin. waxaa ka mid ah mechanical engineering ka qayb ka mid ah, wax alaale wixii maintenance ah, wixii repairing ah, wixii technician ah, even driving cars waa skills dadkeenu iyaga dhexdooda ay isbaraan. waxaa kaloo ka mid ah nooc ka mid ah hospitality-ga, yacni samaynta cuntooyinka iyo cabitaanada fudud, iyo even skillska looga baahan yahay dadka cabitaanada iyo cuntooyinka fudud sameeya sida chefska iyo waiterska iyo cleanerska oo kale. waxaa kaloo ka mid ah waxaan cosmetology-ga la isku yidhaahdo, qurxinta timaha iyo skinka iyo cidiyaha iyo cosmeticska iyo tima jarista oo dhan. waxaa kaloo ka mid ah home builderska oo kale, qolyahan guryaha inoo sameeya farsamada dhisidda guryaha sida nijaarnimada iyo wastaadnimada iyo rinjiyeynta guryaha. waxaa kaloo ka mid ah farsamooyinkan dhartolista, dawaarka iyo farsamooyinka dharka lagu tolo. waxaa kaloo iyaduna ka mid ah waxaan la yidhaahdo all digital printing and publishing and designing. waa shaqooyinkan hadda sagal jet iyo taya iyo ay bulshada reer Somaliland ay u hayaan ee IT-ga ku base garaysan. waxaa kaloo iyaduna hadda soo raaxdo ka mid ah electric and electronic engineering ka qayb ka mid ah oo dadkeenu ay ku bartaan through company training with a fixed period of time. waqti yar oo kooban ayaa company-ga dabka iyo electric-ga wuxuu u yeerayaa dad base-ka ka dhisan oo dabka yacni sida guryaha loo geliyo. muddo yar kadib training ay qaateen kadib horey guryaha iyo leerka iyo biyahaba ka gelinayaan. waa skills dadkeenu ay iyaga dhexdoodu ay isbareen. haddaba waxaa jirta يعني vocational studies ama technical skills ama farsamo gacmeed wali aynan la keenin oo ay habboon tahay inaynu barano, sida recycling product oo kale. warshadii markii product-ga soo saarto in mar labaad product-gaas waji kale loo samayn karo. waxaa kaloo iyaduna ka mid ah all basic construction operations oo kale. waa shaqooyinkan hadda Yamanta iyo Bangladeshka iyo Pakistaniintu ay bulshada reer Somaliland ay u hayaan ee qurxinta guryaha iyo decorationada iyo plumbing fixtures oo kale iyo floor management-ga maxaa la yiraahdaa elevators oo kale, even drainage system oo kale. waa skills aynu baahannahay run ahaantii inay dadkeenu bartaan. waxaa kaloo ka mid ah customer service-ka, receptionist-ga, call centers-ka oo kale, maxaa la yiraahdaa fire iyo safety service-yada oo kale, assurance-ka iyo choir activities-ka oo kale iyo kuwo kaloo fara badan. haddaba waxaad ogaataa waxaan farsamada gacanta la yiraahdo inay tahay human development skills. waxay sare u qaadaa productivity-ga dalka iyo wax soo saarka. waxay sidoo kale kobcisaa dhaqaalaha dalka iyo economic-ga dalka. waxaa jira wadamo fara badan oo reer Yurub ah oo aan haysanin wax natural resources noocay doonaanba ha ahaadaane, sida yani badda iyo webiga iyo maxaa la yiraahdaa fishka iyo macdanta iyo hawada iyo wax natural resources aan haysanin, balse waxay kaliya ku horumareen oo indhaha adduunka ay ku soo jiiteen human development skills. waa farsamooyinkaas gacanta. waxaan kaloo u baahannahay manhaj waxbarasho oo update ah 21st century knowledge oo koorsooyinkiisa iyo syllabuskiisu ay update yihiin oo relevant ay leeyihiin baahiyaheena ay daboolaan, oo lagu barto ixtiraamka waalidka, jacaylka, samafalka, cadaaladda iyo wax kastoo wanaaga.
waxaan kaloo u baahanahay goobo waxbarasho iyo manhaj waxbarasho oo soo saara business expert, public figures, intellectuals, broadcasters, inventors, designers, entrepreneurs and so on and so forth. haddaba culumta ama duruusta ay habboon tahay inaan ubadkeena barno marka ay dugsiga hoose dhexe ay marayaan way ka saameyn badan tahay culumta lagu baro dugsiga sare iyo jaamacadaha. So we need to be very careful in the early stage of life. Basically foundation kan ardayga laga dhisaa waa very important weeyaan. Tusaale ahaan elementary schoolka waa dugsiga hoose ubadkeena waxay ku soo galaan 6 jir wuxuu kaga baxaa 10 jir waa 4 sano. Waa markaan isticmaalana systemkan hadda soo sheegay ahaa 8+4+4. haddaba halka waxaan jeclaan lahaa waa fikirkayga inaan wax ka yara bedelo. Number 1 aynu ka dhigno 2+6+4+4 yani 2 years of preschool, pre-primary school ama KG-da waxaan inuu naqaano oo ubadkeenu ay KG soo maraan. يعني public iyo private labadaba ay khasab ku noqoto inuu KG soo maro. waxyaabaha KG-da lagu baro ardayda 80% boqolkiiba 80 waa tarbiyad iyo akhlaaq wanaagsan. 20% waa training ama skills. يعني ardayga inuu qalinka iyo warqadda saa isugu dul qabto inuu positionka iyo directionka uu fadhiisanayo KG-da ay ardayga lagu soo baraa. then hadhow tole shop kama naxayo markuu bilaabayo elementary schoolka wuxuu imanaya meeshii arday diyaara oo garanaya waxa uu rabo inuu barto. Then 6 years of elementary and primary school, then 4 years of secondary school, then 4 years of university. Number 2 waxaan kaloo jeclaan lahaa in ardayga da'diisa ama age-kiisa iyo culumta lagu barayo dugsiga hoose inay is yeeshaan oo arday 6 jira iyo mid 12 jira oo miyiga ku soo daahay aan meel la wada fadhiisin waayo isku aragti maaha, isku fakar maaha, isku talents maaha, isku sabir maaha, isku maxaa la yiraahdaa isku tarbiyad maaha. Number 3 waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan wax ka bedelo culumta dugsiga hoose lagu barayo ardaygu in la localize gareeyo oo yani ardayga aan dunida wax laga barinin dunidu sida u shaqeynayso iyo general knowledge-ka iyo meesha loo socdo iyo meesha laga yimid iyo maskaxda qofka yar ee 6 jirka ama 10 jirka ka hooseeya ma qaadi karto. marka waa in la localize gareeya oo yani aan focus-ka iyo awoodda saarnaa maadooyinka ay ka mid yihiin xisaabaadka iyo luqadaha sida English-ka, Arabiga iyo maxaa la yiraahdaa iyo af Soomaaliga. in sidoo kale focus-ka iyo awoodda aynu saarno tarbiyada iyo akhlaaqiyadka wanaagsan yani character building, ethics and grooming sida jacaylka waalidka, ixtiraamka, samafalka, cadaaladda iyaga dhexdooda yani sharafta iyo qiimaha ay isku leeyihiin in ardayga la baro. okay haddaba taas qaabka loo baraya waa inaysan noqon mid samuurada loogu qoro oo 100% samuurada looga akhriyo hadhow toole saameyn badan kuma yeelato cunuga yar. okay waxa uga saameyn badan in ardayga lagu baro through visual learning yani cajalada iyo fiidiyoyo la daawasiyo cunuga yar taas baa uga saameyn badan oo practicality-ga la badiyo. waxa kale oo iyaduna aad iyo aad muhiim u ah inaynu ardayga yar ee 6 jirka ilaa 10 jirka ee dugsiga hoose maraya inaynu barno waxa nationalism-ka la yiraahdo wadaniyada yani barashada dalkiisa hooyo maxaa la yiraahdaa national anthem-ka oo kale oo daabuurka subaxii uu ka qaado quraanka kadib. waxa sidoo kale iyaduna muhiim ah inaynu barno muhiimadda ay leedahay labiska iyo nadaafadda wanaagsan. waxa sidoo kale iyaduna muhiim ah oo qayb inay tahay qayb inay ka ahaato sports-ka iyo jimicsiga waa iyaduna aad bay muhiim u tahay. haddaba class capacity-ga class size-ka yani imisa qof baa classka soo fadhiisanaya dugsiga hoose dhexe waxa la doonayaa maximum 25 student in one class inay soo fadhiistaan. lama rabo not 60, not 70, not 80, not 90 student in one class. waxaad arkaysaa iskuulaadkeena dugsiga hoose dhexe oo ay fadhiistaan 60, 70, 80 arday ay fadhiyaan sidaa wax kuma bartaan waxna kuma kala faa'iidayaan bal waxa laga yaabaa arday yar oo tarbiyad iyo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan kala yimid gurigiisa hooyo inuu markuu 60 qof iyo 70 arday uu soo dhex galo yani ay akhlaaqdii tarbiyadii wanaagsaneed ay ka lunto inaguna inaan wax saxnaabayn doonayna. okay waxa kale oo hadaba iyaduna aad iyo aad muhiim u ah dadka baraya macallimiinta dugsiga hoose dhexe baraya inay 70% dumar ay ahaadaan. dumarku way uga naxariis badan yihiin, way uga dulqaad badan yihiin, way uga wax fahamsiin oo yihiin, way uga take care wanaagsan yihiin marka loo eego ragga. waayo dumarku
raggan waaweyn ee suffrage age-ka ku jira ee qaangaadhada ah yani grown manadan bay isku dhibayeen inay wax fahamsiiyaan mooje laakiin ubadka yaryar way ka soo dhalaalayaan tarbiyad wanaagsan way barayaan waayo waxaad arkaysaa iskuulaadkeena dugsiyada hoose dhexe nin balwad qaadiya sigaar leh oo la rabo 6 am inuu iskuulka yimaado ama 7 am inuu iskuulka yimaado oo waxaan ku yiri ilmo yar oo 6 jira wax baraya then how incredible is that yani sabirkiisa iyo dulqaadkiisa iyo waa sidee markaas iyo waxa uu baraya cunuga yar is incredible. So brothers and sisters, we need to address these issues if we really want to grow. Otherwise we will stay where we are and we will never make any progress. So finally videogayga soo socda waxaan kaga hadli doonaa primaryga secondaryga iyo jaamacadda maxay tahay in lagu barto inagu se maxaynu ku baranaa. So stay with me. Thank you so much for watching.